Guddida qabanqaabada xuska munaasabadda 18 May ee degmada Salaxley oo ay horkacayaan maayarka degmada Salaxley Maxamed Cabdi Haariye iyo sidoo kale maayarka xigeenka degmada Maxamuud Bedel Guuleed oo ay weheliyaan xubnaha guddidaasi 18 May ee qabanqaabada degmada Salaxley oo si habsamiya maalmihii u dambeeyay diyaar garowga xuska 18 May gudaha degmada Salaxley uga waday oo warbaahinta la hadlay ayaa baaq ku saabsan isu soo baxa maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May waxa ay u direen guud ahaan shacabka degmada Salaxley waxaana ay ugu baaqeen in munaasabadaasi si weyn loo xuso. Bismillahir Rahmanir Rahiim waxaan dadweynaha reer Salaxley la socodsiinayaa inay saa dambe sabtida tahay haddii alla yiraahdo 18 May maalinta qarannimada waxaan leeyahay aad iyo aad loo nooleeyo maalintaas waa maalin inugu weynina ka qiimo leh. Bismillahir Rahmanir Rahiim maanta waxaan ku soo dhawaad magaalada Salaxley waxa lagu xasuustaa waxa runtii halganka walka dalka laga xoreeyay waa xuduntii mujaahidiintii azanay fadhiyeen sida awgeed maanta waxaan xusaynaa waa maalin taariikhi ah waa maalintii qarannimada waa maalintii gooniisitaaga waa maalintii jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland bulshada degmada Salaxley xoolo dhaqatada beeraleyda ganacsatada ururada bulshada haweenka dhalinyarta maxayda iskuulaadka iyo waxbarashada dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa inay munaasabada weyneeyaan oo ay xusaan oo ay ka soo qayb galaan isla markaana la ilaaliyo kala dambeynta iyo nidaamka waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo aynu ku jirno xil barwaaqo oo rooban oo maxay abaarta ay naga jabtay marka sidoo kale waxaan u hambalyeynaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabada 300aad dhammaantiinba qaranka aynu hambalyeynaa marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa in la wada yimaado maalinta haddii la yiraahdo la weyneeyo qof kasta calankiisa iyo boorkiisa iyo koofiyadiisa iyo munaasabada maadaama Salaxley ay tahay midna waxa ka socda diyaar garow loo diyaar garoobayo in xuska 18 May dadweynaha reer Salaxley waxaan ugu baaqayaa inay u soo baxaan xuska 18 May anagoo ka waxbarasho ahaan diyaar baan u nahay dadweynaha kale reer Salaxley waxaan ugu baaqayaa inay ka soo qayb galaan xuskan ballaaran ee 18 May. Bismillahir Rahmanir Rahiim maanta waa maalin weyn waa maalin qaran baan leeyahay maxaan ahayd degmada Salaxley ma sha Allah maanta aad bay u nuuraysaa maayarka Salaxley sidoo 6 subaxnimo ayuu waxaan ku shaqada u bilaabay ilaa saacada uu taagan yahay ilaa saacada ma adrix limaanada meel ka dhacayna ma garanayo waxa loo soo baxo maxay banaan baxan iyo 18 May hal wanaajiyo hal xurmeeyaan leeyahay maanta waa maalin weyn oo qaran ayaan leeyahay Allahu akbar baan leeyahay Salaxley oo ka socoto qabanqaabada 18 May 18 May loo diyaar garoobayo waa maalin qaran waa maalin weyn waxaan leeyahay degmada Salaxley dhammaan waa in la isku soo baxaa la weyneeyaa maalintaas ka maamul ahaan waxaan leenahay maamulku si fiican bay u dadaaleen magaaladii way qurxiyeen maayarka iyo maayarka xigeenka aad baan ugu mahad celinayaa siday magaalada bilicdeeda uga shaqeeyeen waxaan leeyahay waan idinku hambalyeynaa dadaalka aad degmadiina iyo shacabkiinaba u horteen degmada Salaxley dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan haday ururada noqoto qaybta waxbarashada caafimaadka dhalinyarta waxaan leenahay waan si mug iyo miisaan la isku soo baxaa in maalinta shucuurteena muujinaa sabtida tahay maalintii 18 May waxaan halkan u dirayaa shacabweynaha reer Salaxley degmada Salaxley inay si weyn u nooleeyaan maalinta 18 May oo si fiican maxay ahayd nabadana u ilaashadaan 18 May ay ugu dabaal degaan ay u soo diyaar garoobaan nabadana inoo ilaaliyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa maxay ahayd aan ku baaqayaa oo ugu baaqaya dhammaan maxay ahayd shacabka dadweynaha degmada Salaxley iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland in la weyneeyo maalinta 18 May maanta halkan waxaan isugu nimid guddidii qabanqaabada maxay tahay xuska 18 May guddidaas oo rahantii ayaamaha ka shaqeynaysay maxay tahay diyaarinta maxay tahay xafladda 18 May in aanu maxay tahay ugu baaqno shacabka dadweynaha degmada Salaxley in ay 18 May isugu soo baxaan si ballaaran maalintaas oo ah maalin qaran maalin ku weyn Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii dhidibada loo taagay maxay tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland maalin maxay tahay qaran oo runtii xiskeeda leh maxay tahay dadweynaha degmada Salaxley si weyn isugu soo baxaan insha Allah ta'ala anaguna waxaan diyaarnay dhammaan maxay tahay dhinaca amniga iyo haday tahay dhinaca qabanqaabada xafladii maxay tahay 18 May xuska 18 diyaarnay sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dadweynaha degmada Salaxley iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada kala dambeynta maxay la kala dambeeyo la ilaaliyo amniga